بسم الله الرحمن الرحيم أنا مقعيق اللي سفير محمد عبد الله oo ahaa maamo oo miyi ah oo daafaha xiraale miyiga ah degan oo ari la joogta agoonleyna ahaa meeshaasan ariga la joogtay ayaa la igu soo weeraray 3 jeer ayaa la soo weeraray 3daas jeer 2 jeer jir waa la jir dilay 3 nin bay ahaayeen waa ii gacan qaadeen markii hore gacan qaad bay igu sameeyeen ul bay ila dhaceen markii ushii ka dhamaatayna xabada baasa ayuu igu furay ninkii markii hore gacan qaadka iyo dadka igu soo hormar ninkaasu 3 jeer nimankii idilay mar walba asaga watay una horeeyay magaciisa ma aqaan laakiin ina iyihiisaan aqaanay in Muuse uur baa la yiraahdaa maalintii hore nin kale oo la socdo ila dilayna ina dhaman cad baa la yiraahdaa labadaas nin sidaas aan u aqaanaa maalintii dambe nimankii xabada igu dhuftayna mid kale oo ina dhaman cad ayaa la socday oo shaamowga markii kan ushu ka dhamaatay oo xabada uu kan igu dhufanahayo ushii shaamowga ahayd buu asaguna ila dhacayo sidaasay ahaayeen 3 jeer 3 gacan qaad bay iga marhayaan markii ugu dambeysana ay taas ahayd arigayga dhaxdiisa igu yimaadeen wax la igu haystay waxay ahayd ariga meeshaan maxaad ugu soo duudaa ama u daajinaysaa ama u joogtaa bay ahayd ari baan la joogtay gurigayga agtiisaan joogay geedii ariga aan soo hargelinayo arigu daaqayo ama soo harsan jiray baan joogay laan qayle meesha la yiraahdo oo bay ku magacaaban tahay Dhisaqa Xasan Aadan iyo laan qayle dhexdooda adigu laan qayle xisaabsan hadda ka hor waxa jiray gabdho oo yar yar oo ariga aan xaafada uga tagtay 3 gabdhood oo umulaa oo ilma haystay iyo gabar yar oo saqiir oo agoonta u yarayd ayagoo oo wada jooga in la soo weeraray oo dumar 6 qof oo dumara oo baangada sidata u yimaadeen 4 nin oo waardiyahuna ay ag joogeen oo ay ilaalinayeen wixii ku soo baxa oo gabdhihii inta loo yimid iyadoo ariga geedaha keenay oo geed fadhiya ariga dhexdiisa lagu dilay oo baangadihii lagu dhacay oo iyagoo barti baabuurka looga soo qaaday reeraha laftooda dariska aanay haddana colku nooga soo baxo maalin walba oo nooga imaanayo oo dhibka wali alla waday laftooda weey ilaa waagaas gabdhaha la dilay iyo xilligan inta ka dhaxle rabshadoodu nagama dhamaan waana reeraha laftooda oo meesha degan oo deegaanka nala ah ka reer dalal baa sida anigu ma kala aqaano laakiin sida la baytinayay ama hadda ka hor aan xasi ku hayay dirisnimadooda waa dhow bay nala soo dageene reer dalal baa muhiimiyadooda tay waliba reer Cabdillah alla magan kulli baa lagu sheegay haybtooda kulli ninka 3 jeer awal soo beegastay oo mar walba ciidanka watay mar 2 jeerna ayagoo jir dilay oo mar ay gaariga Cabdibilaha wateen ciidanka marna ayagoo luga ay noo yimaadeen iyo markaan dambe oo nimanka xabada igu dhuftay mar walba isku nin baa watay ciidankaas mar walba isku ciidankaas isku nin baa watay marka ninkaas waa ina Muuse uur baa leeyahay waa un kulay jufada un reer dalalka ah inuu qolo ka siiyayna ma aqaan aragiisana waan aqaan kuwa kale oo la socday oo ninka maalintii hore ila dilay iyo ninka maalintii dambe xabada ugu dhufanaya ila dilo shaamowga watana cayr weey ilma dhabac nimanka la yiraahdo cayr weey iyaga la daga oo la dhaliya